in uu qoraa noqdo darteeda wuxuu u galay dhibaatooyin iyo dagaallo badan. ugu dambeyn noloshiisa waxay ku soo gabagabowday in xabsi loo taxaabo. Rafaa'il wuxuu ahaa yaraantiisa mid aad u jecel inuu noqdo qoraa. xilliguu uu yaraa wuxuu jeclaa in uu wax ka qoro gabayada arrimaha ku saabsan bulshada. riyadiisuna waxay ahayd inuu isku beddelo qoraa adduunkoo dhan laga yaqaano, bulshadiisana ka dhex muuqdo. markii ay da'diisu ahayd 20 jir wuxuu soo saaray buuggiisii ugu horreeyey ee isaga u qaaska ahaa. wuxuu geeyey mid ka mid ah xarumaha ugu weyn ee buugaagta lagu soo bandhigo oo ku taalay magaalada Milano ee dalka Italy. balse maamulihii xarunta markii uu aqriyay qisadiisa waa uu ku soo celiyey, wuxuuna ku yiri, wiilkaygiiyow, qofka qoraaga ah waxaa lagama maarmaan ah in uu soo maro tijaabooyin dhowr ah oo nolosha quseeyo ilaa uu awood kaga yeesho in uu wax qoro. markaa kadib Rafaa'il wuxuu go'aan ku gaaray in uu ka mid noqdo ciidamada militariga ee dowladda Talyaaniga ee xilligaasi ku sugnaa waddanka Faransa. wuxuu aaday magaalada Marsilia, wuxuu noqday dagaalyahan khatar ah. 2 sano kadib wuxuu dib ugu noqday hawshiisii ahayd inuu wax qoro. markii uu dhammeeyey buuggiisii cusbaa wuxuu u geeyey ninkii joogay xaruntii lagu soo bandhigi jiray buugaagta. markii buuggiisii laga jeegareeyey wuxuu ugu jawaabay, buuggaagan cusub lagama helayo wax naxariis ah, wuxuu ka sheekeynayaa oo keliya dhiig iyo geeri. sidaas daraaddeeda anaga buuggaagan kameenaan helin. Rafaa'il niyadda iskama uusan jibin ee waxa uu go'aan ku gaaray in uu mar kale sameeyo tijaabo cusub oo ka duwan kuwii hore. wuxuu go'aansaday in uu xiriir jacayl la wadaago hablaha si buuggiisa cusub uu u noqdo mid uu kaga hadlayo arrimaha nolosha iyo jacaylka. markii uu soo afjarayna wuxuu u geeyey ninkii. indha-indhayn kadib wuxuu ku yiri, halkani jacayl loogama baahna, waxa aad soo qartay waa qisooyin meel kasta laga heli karo, marka waa inaad la timaadaa ra'yi cusub. ugu dambeyn Rafaa'il waxa uu u soo safray keemaha Afrika, halkaasi uu ku sugnaa muddo 2 sano ah. wuxuuna dib waddankiisa ugu soo laabtay isagoo wata buug cusub. laakiin markii uu xaruntii geeyey, guddoomiyihii xarunta wuxuu ku yiri, arrimaha aad soo qortay ma ahan wax lagu soo jiidan karo qofka akhristaha. dadka hadda jirana waxay jecel yihiin fikiro cusub. buuggaaguna waxaa ku qoran oo keliya tijaabooyin dhexmaray adiga iyo xayawaanadii duurjoogta ahaa, kuwaasoo aad la dhacday rasaas hortaadana ku nafbaxay iyagoon aan samayn wax iska caabin ah. Rafaa'il markani aad ayuu u niyad jabay, laakiin kama uusan laaban go'aankiisii ahaa in uu alifo qisooyin soo jiidasho badan. wuxuuna go'aansaday markaan go'aan ka duwan go'aamadii hore. wuxuu weerar ku qaaday 4 xarumood oo lagu ganacsado ee ku taalo magaalada Milano ee dalka Talyaaniga. nasiib darase wuxuu gacanta u galay ciidamada booliska kadib iska hor imaad hubeysan oo u dhaxeeyay isaga iyo booliska. maxkamadda ayaana loo gudbiyey isagoo lagu xukumay muddo 2 sano ah. balse intii xabsiga loo kaxeynayay Rafaa'il wuxuu yiri, ma jiro qof iga warhayo, laakiin waxaan awoodaa in aan alifo buug cusub aan kaga hadlayo nolosha dadka maxaabiista ah ee ku jiro xabsiga. muuqaalkeena maanta halkan ayuu ku egyahay. nabadgelyo.